gargaarka raashinkan oo jaaliyada Soomaaliland ee ku dhaqan wadamada Carabta oo ay ku soo hagaajiyeen Sheekh Cabdilqaadir Xaaji Jaamac ayaa jimciyada wadaniga Ar-Raxma Al-Khayriya u qaybisay isla markaana gaarsiisay qoysas tiradoodu ay dhan tahay 200 oo qoys oo deegaanada hoos yimaada Dar es Salaam iyo Faraweyne gudoomiyaha Ar-Raxma Al-Khayriya Sheekh Cabdalla Axmed oo gargaarka raashinkaasi ka hadlay ayaa ka waramay kaalmadan ay u qaybiyeen deegaanadan loo soo mariyay kolay raashin bal ku qaybinayna oo qoyga Hargeysa baliga caso raacsan Dar es Salaam marka kolay waxaanu ilaahay u bareynaa cid soo bixisay raashinkan oo ku soo hagaajisay Sheekh Cabdilqaadir Xaaji Jaamac iyo Cali Aadan xasan oo imaarad ka soo qaaday waxaanu ilaahay Xuseen oo imaarad ka soo qaaday dadka soo bixiyay ilaahay baan u bareynaa halkay ka soo saarnay khayr ugu bedelo dadka loo soo dhiibay ilaahay khayr siiyay soo gaarsiiyay annagoo ah jimciyada Ar-Raxma Al-Khayriya oo gudoomiyadu la hadlay Cabdalla Maxamed Ayna waxaan leeyahay wixii ay soo gaarsiiyeen وسوق عرسيان ضد كشاف الآخرين. Sheekh Cabdilqaadir oo isaguna gargaarkaasi ka hadlay ayaa uga mahad celiyay dadka kaalmadaasi ugu soo hagaajiyay dadka abaartu ay saameysay. Waxaan ugu qaybinay 100 qoys oo dadkii dhamal deganaa dadkaas oo adduunku inuu ka dhamaaday biyo aan haynin waxa weeyaan deeqda soo dirteen qoladii jaaliyada maxaan ku dhahdaa imaaradka Carabta deganaa ee u dhashay waqooyiga galbeedka iyo oogada Hargeysa وحويان لعكتي أنا سوق أرسيسين وحويان نوصل درتين أنا قلنا واللي بوانو كبني زيادة أنا كدر ري دبدنا أوجي وقوي بوانو غايبني وحيجاري سايلا سدح بقولوا قويس بقول هالكمان فوق غايبني لما بقولنا أوجو يجنا وحويان والسويت والقصة دري دونا dhinaca kalena mas'uuliyiinta deegaanada deeqdaasi la gaarsiiyay ayaa soo dhaweeyay mucaawimadan dadka tabaalaysan lagu soo caawiyay geesta kalena xubno u hadlayay qoysaska abaartu ay saameysay ayaa u mahad celiyay jaaliyada Soomaaliland ee ku dhaqan wadamada Carabta mas'uuliyiinta lagu soo hagaajiyay iyo kuwa qaybintooda ka qayb qaatayba deeqdan waxay ka timiday Imaaraadka Carabta ayaa laga soo diray dad walaalihiina baa soo diray oo idin soo gaarsiiyay oo runtii uu baaqina iyo abaarihiina ka warhaya oo gaareen jaaliyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Imaaraadka kuna soo hagaajiyay Sheekh Cabdilqaadir Xaaji Jaamac iyo Sheekh Cali Aadan waxay u wakiisheen markaasi inay qaybiso jamciyada khayriga ee Ar-Raxma oo aanu maanta markaasi 100 qoys ama 100 markaasi 100 qoys oo deegaankan dadka loogu soo talo ilaahay abaaraha inaga soo jibo ilaahay wixii arsaaqadan oo keenay noo soo qalqaliyay noo keenay iyo kuwa wada iyo kuwa kale ilaahay u gargaar nagana dhamaashada ilaahay amiin hay